الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سيدا أد مقليسين به waxaanu joognaa aan rajaynaynaa ilaahay inuu nabad nagu gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala maalinta ciidda ah ee shicaarkeedu iyo kelimaadka astaanta u ah ee lagu garta ay tahay kor u qaadidda towxiidka allah subxaanahu wa tacaala allahu akbar maxaa yeelay ilaahay wax ka weyn ma jiro markaan salaada xidhanayno waxaanu dhahnaa allahu akbar mar walbaba qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah shahiidun baynii wa baynakum haddaba ilaahay wax ka weyn ma jiro subxaanahu wa tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar towxiid laa ilaaha ila allahu wallahu akbar 30 maalmood baa lasoo soomanaa gabalkii ayaa dhacay shicaarka iyo kelimadaas baa la qaadaa salaadaha kadib maalintaa waa maalin ciid ah waa maalin jaa-isada weyn la bixiyo qofka hadduu soo shaqeeyo ama uu imtixaan galo qof walba waxaa lagu abaalmariyaa wuxu uu keenay wax u dhigba ayaa lagu abaalmariyaa haddaba maalinta ciidda ah waa maalinta abaalmarinta rabbi uu abaalmarinayo dadkii soo shaqeeyey koorsadana ka soo baxay 29 maalmood ama 30 maalmood haddaba waa maalin farax badan oo qofka muslimka uu ku farxayo wixii uu soo shaqeeyey maanta midhaheeda inuu guranayo aqbalkase allah iska leh rajadaanse qabno waxaa weeye iyo dhanniga iyo xusnu dhanniga alla aan ka malaysanayno annagoo waddooyinkiina loogu talagalay marnay salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaad u aragteen anigoo u tukanaya saan idiin amray nabigu leeyahy saad u aragteen anigoo u tukanaya u tukada maalan khuduu cannii manaasikakum wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu annagoo halkaa ka duulayna asbaabta annagoo qaadanayna malaha aan alla ka malaysanayno inuu alla naga aqbalo maxaa yeelay rajadaan qabna waxaa weeye subxaanahu wa tacaala alla aan ka rajaynayno malaha wanaagsan mar walba inuu alla nagu abaalmarinayo subxaanahu wa tacaala maalintaa annagoo rabbi ka rajayna mala wanaagsan haddanana waanu faraxsannahay mashaariq alardi wa magaaribihaa muslimiinta 1.5 milyaar muslim ayaa maalintaa faraxsan ya turaa maalintaa maxaa laga doonayaa waxaase faraxsan qofka soo soomay waxaase naxsan qofka aan soo soomin ee aan waajibka la imaanin maalintaa waa naxsan yahay maxaa yeeley waa yowm yani tawsiicu aljawaa'is jawaa-ista maalinta la qaybinayo weyn ilaahay hanugu daro kuwa jawaa-ista maalinta la siinayo subxaanahu wa tacaala maanta waxaan maqlaynaa waxaa weeyaan koox hebel ayaa waxay ku tartameen orod kadibna waxaa qaaday wiil soomaaliyeed baa xagga qaaday ama wiil mataqaanaa kanaa qaaday waxaan maqlaynaa waxaa lagu tartamay intaasoo nooc laakiin jawaa-ista la qaybinayo iyo suumanka dahabka la qaybinayo iyo bilada la isku xidhayo maalinta qiyaamo waa cidda 29 maalmood ama 30 maalmood koorsada siday ahayd oga soo baxay amarka allana qaatay subxaanahu wa tacaala maalintaas ayada ah sida sunnada in la farxo wey sida sunnada in laysu tahniyeeyo weeye oo tahniyad laysu diro qaraabadu isxidhiidhiso laysa salaamo in lays cafiyo qodobada muhiimka ah ee raba maalinta inaan tilmaamo ogana faa'iidaysto fursadan qiimaha badan waxay tahay kow horta in lays cafiyo oo qalbiga waxa ku jiro dhan laga saaro almuslimu akhul muslim waxaadna ogaataan maalin kastoo isniin iyo maalin kasta oo khamiisa acmaasha kor baa loo qaadaa rabbina albaabadu u furaa malaa'igtuna way aqbashaa allana waa ka aqbalaa ilaa 2 qof ma ahane waa 2 qof ay dhibaato ka dhaxayso wuxuu rabbi dhahaa celiya ilaa ay ka soo heshiiyaan ma kula tahay maalinta ciidda ah acmaasha dadka kor loo qaadayo in camalkaaga la soo celiyo waa suurtagal sababtu waa maxay qof walaalkaa ah shahaadanayo ahlu tawxiida muslima xoolo iyo wax kale idinka dhaxaynin ayaad xumaan u haysaa xumaan baad qalbiga ugu haysaa xataa laga yaaba inay waxba idinka dhaxaynin xataa waa laga yaabaa inayna waxba idin dhex marin
mujarad waxaa laga yaabaa inaad ku nacdo waa ree hebel kownuhu inuu qabiile hebel ka dhashay inaad ku nacdo waxaa laga yaabaa inaad ku nacdo wuxuu alle siiyey oo xawlo iyo awlaad iyo cilmi iyo xooga ayaa laga yaabaa inaad ku xasado qalbigaaga ka tirtir xaasidnimada ka tirtir oo kibirka ka tirtir oo isla weynaanta ka tirtir oo macsida ka tirtir sidaa daraaddeed magaalo walba dadka jooga dad walba oo isla jooga si gooni ah waxaa waajib ku ah inay si dhaba isu cafiyaan iscafintu ma aha intii mimbarka la soo istaago ama mataqaanaa microfonka la qabsado ama shafka la isa saaro in la yidhahdo waa la iscafiyey haddana markii la kala dhaqaaqo inay halkii laga sii miiso taasi iscafin ma aha iscafintu waa inay halkaa ka soo go'do waa inay qalbiga ka soo go'do waa inay niyada ka soo go'do waa inaad ilaahay wax u horumarsato subxaanahu wa tacaala taasi waa midaan kula dardaarmayo aniga naftayda iyo walaalaha muslimiinta ah meel walbo ay joogaanba maalinta ciidda waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in laysu tahniyeeyo sida aanu sheegnay waxaa kaloo ka mid ah in dhar qurqurux badan la qaato in la isnadiifiyo nadaafad dhammaystiran maxaa yeelay diinteenoo dhan ba addiinu nadaafa cidyaha in la gaabiyo shaarubta in la gaabiyo raggan ka hadlayaa shaarubta inay gaabiyaan timaha dadka bini aadamka ama kilkilaha ama meelaha kale xudunta hoosteedii iyo ka soo baxa in la xiiro qofkii inuu qabaysto oo qabays dhammaystiran inta awooddiisu ay tahay inuu isnadiifiyo barfuun iyo cadar waxa ugu idgoonaya gurigiisa yaalla inuu isticmaalo dhar midka ugu qurux badan inuu soo qaato waa sida sunnada ah taasi waxa aan ka hadlayo dhan waa ragga ama dumarku ciddiyaha way gaabin way isnadiifinayaan dharka ugu fiican ee jirkeeda astura ayayna soo qaadanaysaa ayada barfuunka bannaanka uguma soo baxaysa gabadha maxaa yeelay fitanka ayaa la diidayaa shareecadeennu waxay diidaa waxay ka hor tagtaa intuusan wuxuu dhicin alwiqaayatu khayrun min alcilaaj intaada isbitaalka tegin marka hore daawada isticmaal oo fitamiinka isticmaal haddaad qufacdo oo aada xanuunsato inaad daawadu ku anficiya in kale war kama haysid saa daraaddeed nadaafad meesha ugu dambaysa waa inuu qofku u soo baxaa waxaa wanaagsan qofku markuu soo dhaqaaqaba inuu bilaabdo ama uu bilaabo takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd inuu soo socdo inuu soo kallaha ayaa fiican markuu soconayana tallaabada uusan boobsiinin maxaa yeelay lugta midigta ah ajir baa looga qorayaa lugta bidixda ana dunuubta iyo dembiga ayaa looga daadinayaa qofka muslimka ah faqiir kasta oo waddada uu ku arko inuu caawiyo oo mataqaanaa wax siiyo wuxuu awoodi karo salaamo oo assalaamu calaykum uu yidhaahdo ilaa uu ka imaado goobta salaada marka la imaado waxaa la doonayaa takbiirta in kor loo qaado si jamaaci ah dadku ay u wada qaadaan oo aan intuu qolo qaado qolada kale ayna ka daba dhihine nin walba uu markaa iska qaado kelimaadkaas ayagee maxduudka ah kelimaadkaasuma nas ku soo arooray oo nas saxiixa loo hayaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar ama wallahu akbar walilaahi alxamd kelimaadka in lagu gaabsado ayaa sunnada u dhow nabigeenna sala allahu calayhi wasalam mar walbaba sunnada nabiga inaad ku ekaatana adiga ajir iyo wanaag baad korsatay xubbi iyo jacaylka nabigana waad korsatay mar kasta oo wuxuusan nabigu calayhi salaatu wasalaam kuu jidaynin aad ku dardartana kolba waad khilaaftay sunnada nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam sunnada in kor loo qaado kadibna rag iyo dumarkana ikhtilaadka isdhexgalka la kala ilaaliyo oo aan la isdhexgelin waxaa ku xiga salaada in loo istaago salaada markii loo istaago kadibna oo salaada la tukado ragcadda koobaad 7 jeer allahu akbar ragcadda labaadna 5 jeer allahu akbar kadibna imaamku markuu salaada ka baxo inuu khudbo u istaago khudbada in la dhageysto waajib ma aha laakiin in la buuqa ma haboono
qofka baxaya wuu bixi karaa laakiin midka dhegaysanaya inuu si wanaagsan u dhegaysto ajir iyo xasanaad ayuu ka helayaa khudbadu waxaa la doonayaa inay noqoto khudbo caam ah oo dhammaystiran oo meel walba taabanaysa caqiidadii iyo akhlaaqdii suluugii iyo dhaqankii waaqicii iyo noloshii dhaqaalihii dadka muslimiinta ahaa tacaamulka iyaga dhexdooda ah waladka iyo waalidka iyo ilmihiisa xaqa darisku isku leeyihiin xaqa ninka iyo xaaskiisu ay isku leeyihiin muslimiinta cudurrada haysta sida loo daaweyn lahaa dhexdooda kulli inay noqoto khudbo shaamila aakhare dadka xusuusisa rabbi ku xidha subxaanahu jala wacala khudbadu markay intaa ku dhammaato ayuha alikhwa oo la soo kala dareerayo waxaa wanaagsani in haddanana waddo aan ahayn inaad marto waayo way kuu makhraati kacaysaa maalinta qiyaamo hadday foqaro iyo masaakiin joogaanna waad siinaysaa maalintaa marka in las soo ziyaarto oo qaraabada iyo asxaabta iyo deriska ay isla farxaan waa wax aad iyo aad u wanaagsan haddaba ciidda qiimaha badan ee na sugaysa waxaan ku soo khatimi lahaa in laga farxiyo da'yarta iyo carruurta oo magaalo walba dadka mas-uuliyiinta ah ee waxgaradka ah inay intay xoolo isku daraan oy lacag isku daraan waxaad arkaysaa maca alasafi shadiid magaalo dhan oo ciidaysa oo aad mooddo inuu meyd dhex yaallo magaalo dhan oo ciidaysa oo aad mooddo wax faraxsanba qof faraxsanba inaada ku arkin laga yaabo inay yaraato oo wejigiiba uusan faraxsanayn oo ilmihii aan xataa laga farxinaynin oo xataa nacnac yaryar intii meelaha laga soo gado xataa aan loo wasacaynin waxaad mooddaa waa wax aad iyo aad u liita runtii waxaa wanaagsan in carruurta aad looga farxiyo waxaa wanaagsan in carruurta wanaag looga farxiyo oo ay farxaan maxaa yeele waa ciiddoodii haddii kale waxaa weeyaan ciido kale ayaa looga farxinayaa oo markaa caqiidada islaamka dhaawacaysa ayuha alikhwa ciiddan nicmadee alle una gaadhsiiyey iyo soonkan aan soo soonnay iyo farxaddan iyo salaadani ma habboono in lagu dhex qaso wax ilaahay xarimay subxaanahu wa tacaala waa nicmada in ilaahay loogu shukriyo oo ilaahay loo celiya ayaa wanaagsan waxaad arkaysaa dadka qaarkood ciidda markii ay gaadhaan inay xumaan mataqaanaa ay ku farxayaan waan farxaynaa bay leeyihiin laakiin waxay ku farxayaan waxaan wanaagsanayn dadka ilaahay ha ka baqeen oo ha ogaadeen nicmadaas iyadaa in laga qaadi karo oo nicmada ilaahay ha loogu shukriyo subxaanahu wa tacaala oo yaan la qabanin xaflado la leeyahay ciid weeye haddanana macsi iyo wuxuu alla ka cadhoodo subxaanahu wa tacaala lagu samaynayo inta aanu kaga kulmayno fadhi intaa ka dambeeya waxaan idinkaga tegayaa ammaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaankeenna ha aqbalo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd wassalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatu